dadkan muslimiinta ah ee ku nool waddanka Japan ayaa waxaa la weydiiyay sida ay ku soo islaameen sidoo kale saynisyahankii ugu weynaa waddanka Japan ayaa isaguna diinta islaamka qaatay haddaba waxaan isla arki doonaa sida diinta islaamku ay ugu faafayso waddanka Japan iyo jawaabihii ay dadkaani bixiyeen balse marka hore waxaan ka codsanayaa haddii aad igu xirnayn inaad page-kayga follow soo dhahdo oo aad ka mid noqoto asxaabtayda waddanka Japan waxa uu ka mid yahay wadamada muslimiinta ugu yar ay ku nool yihiin laakiin hadda waxa muuqata in diinta islaamku ay ku faafayso oo dad badan oo u dhashay waddankaasi ay diinta islaamka qaadanayaan waliba ayagoo dalkooda jooga haddaba qaar ka mid ah dadka muslimiinta ah ee ku nool caasimada Tokyo ayaa waxa la weydiiyay sidii diinta islaamku ay ku soo gaartay oo ay ku soo islaameen gabadhan ugu horeysa waxa ay tiri sanadihii ugu dambeeyay waxa dalkeena Japan aad u imaanaya dalxiisayaasha ka imaanaya wadamada muslimiinta ah iyo carabta waxay tiri waxaan ahaa qof soo dhaweyn badan oo mar walba waxaan isku dayay jiray inaan u sharaxo waddanka iyo meelaha ay ku dalxiis lahaayeen kadibna waxaan ka helay oo aan la dhacay dabeecad wanaagooda iyo sida uu dhaqankoodu yahay waxayna tiri markayga hore waxaan ka aaminsanaa dadka muslimiinta